ragga la socda waa dhamaadeen raggii soo jabsadana raggii la socday oo mawdkiisadii la soo qaadin baa kolkan xasuusto lil maasiitay markaan ka sheekeeyo wallahi ani qalbigaygu istaaga wallahi intahayga ilmayo hadalka ma qaadi karaba hooyo wallahi dhibaato inteeda leegayna soo gaadhay hadda imika shacabkii halkii aan kabaabigi aan kaga imanay way haysataa saala dul fadhi halkan wax ka cadaynaynaa ururka City Diaspora Community deequna soo gaarsiiyay oo $1,100 ahayd 15 qof oo barakacayo kamid ah 15 qoys oo barakacayo iyo dhaawac isku jira inaan gaarsiinayna maanta oo agoomahiiba waa qaybtii wixii dirba u joogay ala 4600 baan ayaan u qoontaynay oo siinaynaa ilaahay yagana ka abaal mariyo City Diaspora waxa kamid ahayd Xaaji Umar Cawaale ilaahay xafido $1,000 soo gaarsiiyay iyo layse luul daahir oo $100 soo gaarsiisay waa $1,100 halkay ka soo gureenna waxaan rabaa inaad u ducaysaan ilaahay haduu ilaahay baahidana to inta u dhow ku daboolmaysa maahin waxa waan kala gaarsiin weynay agoonto aad bay u farabadan tahay dhaawac aad buu farabadan yahay ilaahay baa wax gaarsiiya wixii kale oo heshaana waad u soo diri doontiin jazaaka allah baan idin leeyahay City Diaspora Community gaar ahaan Xaaji Umar Cawaale Allahumma salli ala sayyidina Muhammad iyo inta kale City Diaspora iyo intii jab ka soo bixisayba dhamaantood ba Ciise City iyo Sahal سعيد حريق ومسمى الله سعيد كغدع الرصاصه دي مسمى الله كغدع لبان يرو فار غير عمر داهر لكن ولي wax u baahan yahay sawjees لكن والله إيشا كان عضي وأنا والله هدي لك القار والله أدبو فعلا له أسوان على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أوركان City Diaspora Community أو مالك الدول قدلولوين كشرة يكسوا قبطي. وحقبت أوركان City Diaspora Community وحو كشرة ودما بدن ودبدعة كندا أو أمريكان أستراليا وحنا كقدومية عمر عوالي إبراهيم عيسى سيتي iyo sahal cilmi ayaa ka gudoomiyaha qaybta dirdhabana waxa jooga aniga iyo oo la yiraahdo Maxamed Ali Gooshe iyo Suge Xaaji Suge aadan cabsiye iyo gabar kale oo hadda naga maqan xiis la yiraahdo marka waxaan soo qabanay anagu markii dhaawaca laga keenay galbeedka ee la xasuuqay magaalada Cadeyti iyo Bardheer ayaan waxaan halka ka qaadnay waxqabadkeega timir iyo waxa la dhaawac u baahnaa iyo dhar wuxuu xirnay baan geynay dhakhtarka City Hospital ee ku yaala magaalada Biki markii kale la soo barakacay ilaa Bardheer la isla yimid waxaan halka ka qaadnay gaadhi raashin oo geynay magaalada Cundhuufo marka maanta waxaan geynay dhaawac loo qalayaan geynay oo xagaas dhaawac loo qalayay oo geynay dibi yaan geynay magaalada Biki oo dhakhtarka City Hospital baan geynay
waxaan maantana isla qaadanay dadka ugu taagta daran wixii aan lacag haynay oo ahayd $7,000 dadka ugu taagta daran ee jooga magaalada Diridhabe dadka jooga degmooyinka gobolka City waxa dhacday in wax la siiyo gobolku isxil qaado wax siiyo laakiin Diridhabe dawladda Diridhabe iyo maxaan ku yiraahdaanay laakiin waxaan isleeyahay anaga ka ururkayga City Diaspora ahaan dadkii magaaladan joogay soo barakacay maadaama aan la ogeyn bal 15 qoys wixii dhaawacay magaalada joogay iyo wixii agoona intaan soo xulanno aan maxay heedaanay inay waxaan guddoonsiino tiina maanta way noo suurta gashay waa anaga hadda hawsha ku jirnay guddoonsiinay baahiduna inta kuma dhamaanayso marka waxaan ka codsanaynaa cid walba joogta magaalada Diridhabe maamulka magaalada Diridhabe inay ka war hayaan barakacayaasha magaalada ku sugan wabillahi tawfiiq inta baan ku soo dhameynaya بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaan hambalyeeynaa walaalaya isxil qaaday groupka City kamida waxaan hambalyeeynaa oo u duceynaynaa oo ducada islaamka ugu duceynaynaa walaalka isxil qaaday ee dhibaatada ka damqaday ee waxa soo diray wixii aad soo dirteen in kastuu baahidii dabooleynin uu na soo gaaray wuxuu ahaaba waxaan soo xulay dadkii Diridhabe joogay oo dawlad iyo dad iyo cid u maqanay jirin oo sidii ahayd agoomo u badan ayaan soo xulay wayna soo gaadhay waad mahadsantihiin waxaan iga codsanaynaa baahidu inayna inta ay dabooleynin inaad halka ka sii wadiin hawshaasi oo wixii karaankiina aad ku dadaashiin dadkiina wax dawladda u maqanina ma jiro xagga dhibaatada haddaan yar balaariyo dadku garbaciisa joogi dad rag iyo dumarba dad iska shaqaystay ahaayeen wixii dhintay maayna wixii soo baxay waxay noqdeen wax kala firdhaday wax dawladaha maxayday gargaar la taaban kara siisana ma jiro bishii mise 2 bilood mise 3 bilood halkii la joogo 25 kaliyo bariisa dad magaalo caasimada ku noolaanayay wax baahi ay daboolaysi ma jirtay iyo dadka barakaca la siiyaa sidaa darteed intan walaaluhu ay soo direen Diridhabe dadka joogi waa dad maxay meel aan ku qorayn oo halkan Diridhabe iska taagan oo wixii joogina uu aqal kiraa galay kira uu awoodi kareynin mid kale laba dadka iminka aniga oo odayaashii garbaciisii waxaan ahay dadka hantida halka lagu qaatay garbaciisii canfaray bilaqaysata hantidii ugu badneed qofka laga qaataan ahay dhibaatadu kolka waxaan soo koobi karayna maahina waxaan si toosan iga codsanaynaa dadaalka inaad walaalahay halka ka sii wadiin waxaan ku soo xulayna intaasi waxay ahayd agoomihii iyo dhaawiciiba agoomihiina way bateen intan iyo in ka sii badan ba halkan Diridhabe joogta haddana intii Ilaahay u qoray ayaan soo xulay waana agoomo wax badi meesha aan wax ka siinay iyo dhaawac waana mahadsantiin بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waad mahadsantiin awlaadeeda dibadda nooga soo gargaaraysay sida aad noogu soo gargaarteen gargaar lama laaba jeebka aad ka soo bixiseen jeebkii Abu Hurayra yaan ilaahay awlaaday kolla in walaalahay aan baatihiin kolla ubadkaygii baatihiin Allah jeebkii Abu Hurayra niga dhiga hooyo dhibaato culus baan soo gaadhay wallahi maxaan ku dhahay to aan ka sheekayn karaya maaha markaan ka sheekeeyo wallahi ani qalbigaygu istaaga wallahi intahayga ilmayo hadalka ma qaadi karaba hooyo wallahi dhibaato inteeda leegayna soo gaadhay hadda imika shacabkii halkii aan kabaabigi aan kaga imanay way haysataa saala dul fadhiya xalaydan telefoon kula hadlayay waana dul fadhiyaa lahaayeen tu dhamaanaysa ma aha innika waxaan niga codsanaynaa hooyoy wallahi agoomii halkii aan kaga imanay qaar iska daranyeysano maxaan ku dhahay iskooladii maalintii ay ku soo barakaceen jeefa oo dhaxan iyo maxaan ku dhahay dulin ay u harin baa jirta qaar wallahi maxay hayday aqal yaro dad iska qooshada meelahan yar ka kiraysto ayaan kasta bel kasta la hoos joogaan leenahay hooyayda Allah khayrna siya bishii rabadana way soo dhawdahay gargaar khayr qaba Allah noo soo fidiyo Allah inka nii fidiyo biidmillahi kariim waana nii soo duceynayna hooyay barakallahu fiikum ducadii nabi maxamed baa niigu duceeyo hooyo jeebka Abu Hurayra Allah niga dhigo barakadii nabi maxamed Allah niga dhigaan ilaahay hooyo بسم الله الرحمن الرحيم سعيد حريث فارغ وانا السلام يا ولا لهي وانا السلام يا دمانتي مسلمين meesha aad joogtiin walaalahayo dadkii dhibta ku dhacday baana
dadkii dhibta ku dhacday ninkii u dambeeyay soo jabsaday dadkii galay ma ayaan anigu ah 3 xabadood baa igu dhacday haddana waa aniga nool hadda raggiisi ragga la socda waa dhamaadeen raggii soo jabsadana raggii la socday oo mawdkiisadii la soo qaadin baa kolkan xasuusto lil maasiitay garbaha meesha ka kacay agoomaha waa kuwii raggii aan la socday ee dhintay way haddana waa aniga maanta nool meesha doogin boolalaha wayna soo gaadhay wixii maanta nasi wayna soo gaadhay tunna shiris bana soo gaadhay meesha doontii ma soo tacalin waa mahadnaq ducada soo garga walaalaha soo gurmad soo garga soo gurmad saad noo soo gar wax soo xasuusateen ilaahayna ni xasuusto assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxtarka City Diaspora Community ay leedahay iyo waxay samaysay iyo waxay tartayba waa la wada garanayaa dhaadhow intaan bixi xitaa tagay marwaxadii aan ku rakibnay baa dhex yaalay hospitaalka wax badan baa ka taray ilaa iyo duuyar ilaa deyn labadaba waa wadabaha waa deyn maantana waatan agoomihii baa sii batay ilaa bixi ilaa halkan bay isdaba jeefaan waxa u darana wax kala ma waa agoomaha iyo dhaawaca haddaad wax heshaan walaalahay kulli baahidu ma marato ilaahay baa dadka kaafiya haddaad wax heshaan ummadda waad arkaysaan agoomaha u badan ee dhaawaca u badan in dhakhtar waxay ku tagtalo waxaan marayaa ninka shisha waliba isha inay isla kaga dhacdaan marayaa dhakhtar 60 kun maal igeeyay haddaan muudanayn oo inta la yahay agoomaha waxaan inta waa agoomihii inta kuma maahin way badihii waa shan qof oo anagu wax ka soo qaadanay meesha imika ilaahay baana wax wala gaara ugu xumo waa labada haddaad wax u taabi kartaan waad u taabaysaan inagana wax naga codsanayna inaad u ducaysaan ummadda City Diaspora Community oo gudoomiyaha ka yahay Xaaji Cumar Cawaale Ciise City iyo Sahal Cilmi Sabatar iyagana inaad yoolaysa intii kale gacanta ka soo geysataba duca aan la koobi karin ilaahay ha siiyaan leenahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh